ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም፣ ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም፣ ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። 30 ዓመት ተኝተናል። አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ሰደህ ወህበይ ረብታ። አንደኛ ሰላም፣ ቆዶብኩ ኮባድ ዋና በትገልዩ። ሁለተኛ ልማት፣ ቆዶብ ከለባድ ዋ ሆርማር። ሶስተኛ የባህር በር፣ ቆዶብ ከሰደሃና ዋ መርህን በደት። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ኢትዮጵያ محبوس أما إنايسن بدهلين كم سيجري دونتو. ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። تتكلم هذا بقول يصدق مليون. በሚቀጥሉት 25 ዓመታት شن يلباتن كسانو أساس عطا. 100 ሚሊዮን ይሆናል። لا بقولوا مليون بينغنا. እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? سيدابا 2 مليون أوقف فائدة أي أهور استاجي كرتا 200 مليون فائدة دود أما وحي ربان. فير عدلهم. عدالة معها. فير عدلهم. عدالة معها. ما كفق عدلهم. شرع عالمي معها. لوجيكم عدلهم. وح معقولة معها. بتأم أسافارينو. وآد بيارنتا سعيبوتها. 30 ዓመት ተኝተናል። صدن سنة وان هرودنا وان جيفني. አሁን ነቅተናል። هذا وان صوتوسنا. ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። سؤاشنا هربان وضعنا. ሰላምም ልማትም هرمر ባህር በርም እናስ يمرهم بيوت. ባህር وكشقينا هنا. نكاسي وتليها جود عيدا مدى دالك إثيوبيا برهانو جولا ومانتا سي أدق وجه الله حس كدعي مقالة أديس أبابا halkaasoo ciidamada dalka Itoobiya ay markaasi ku xusayeen sanad guuroodii 118aad. Birhanu Julla waxa uu si rasmi ah u shaaciyay in markaasi Itoobiya ay dagaal qaadi karto marka loo fiiriyo hadalkiisa sidoo uu dhigan yahay. Waxa uu leeyahay Itoobiya saddex wax ayaa ugu muhiimsan oo ay ka shaqeyn doontaa sanadaha soo socda. Qodobka koobaad waa in dalka amni laga dhigo oo markaas uu la jeedo in jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Itoobiya ee la xasilin lagu sameeyo oo dalku uu nabad noqdo meel kastaba. qodobka labaad ayaa waxa uu ku sheegay in Itoobiya ama dawladda Abiy Ahmed ay ka shaqeynayso sida ay dalka Itoobiya u hormarin lahayd. waxa kale oo uu ku soo xiray oo uu yiri saddexda qodob ee ugu muhiimsan waa ugu dambeeya in Itoobiya ay hesho marin badeed markaasi ama dekad ay isticmaasho. sidoo kale Birhanu Julla taliyaha ciidamada militariga ee Itoobiya waxa uu si rasmi ah sidoo kale u sheegay in aan loo joojinaynin dad uu ku tilmaamay 2 milyan oo qof faa'iidadooda in aan markaasi loo joojinaynin dad gaaraya 200 oo milyan sanadaha soo socda sida uu hadalka u dhigay. 30 sano ayaan hurudnay ama aan jiifnay ayuu yiri taasoo u muuqata 30 sano markaasi in Itoobiya ay san mudnayn inay badla'aan noqoto. hadda waanu ka shaqeynaynaa ayuu leeyahay sida ay bad u noqon lahayd. qodbad aad u dheer oo uu maanta magaalada Addis Ababa ka jeediyay ayaa qodobadaasi ay ugu muhiimsanaayeen waxaana si toos ah loo fasiran karaa sida Itoobiya markaasi uga shaqeynayso sidii ay ku heli lahayd mid ka mid ah dekadaha ku yaala geeska Afrika. arinta marka loo yimaado dadka uu ku tilmaamay 2 milyan waxaan ognahay geeska Afrika عدة 2 مليون أما كودو أما واحد يروندر وإريتريا جيبوتي 1 مليون إلا 200 أي يو شيكتان لكن ترى كوب كرسبي قال شيء جاي وسجال بقول إلا 1 مليون أوقف أنت كنول إنه كنول شاي
toosa marka hadalka Birhanu Jula wuxuu abaaraya dalka Eritrea oo markaasi 2 milyan iyo bar ilaa 3 milyan markaasi lagu qiyaasay inay dadkooda ay dhan yihiin soo dhawaada saaxiibayaal waxyaabaha ee hadalkaasi laga qoray ayaan sii faahfaahin doonaa barteena Magan Media ee ku soo bir oo subscribe ku soo samee sidoo kalena baraha aan ku leenahay Facebook sidoo kale follow ku soo samee oo soo follow gare si aad ula socoto akhbaaraadka aanu halkan sida tooska idinku soo gudbino waa 25 October sanada 2025 ባርበር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል ዋንኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው አሁንም ቀጥሎበታል መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን ልማታችን እናፋጥናለን ባህር በር እናገኛለን kaasi waa taliyaha guud ee ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Birhanu Jula oo maanta magaalada Addis Ababa ka hadlay xilli Ethiopia ciidamadooda qalabka sida ay xusayeen markii la aasaasay oo ay ka soo wareegatay 118 sano Ethiopia ciidamada militariga aasaaskoodii waxa la tilmaamay in hal qarni iyo 18 sano markaasi laga joogo taasi oo muujinaysa baaxadda taariikheed ay ciidamada dalka Ethiopia ay leeyihiin ciidamada guud ee dalka Ethiopia ayaa waxa ay u muuqdaan inay markaasi muddooyinka u dambeysayba hoos u dhac ballaaran ka sameynayaan marka loo fiiriyo xilligii Abiy Ahmed ka horeeyay halkii ay joogeen waxaana arintaasi loo sababeynaya dagaalada ahliga ah ee gudaha dalka Ethiopia ka dhacay iyo sidoo kale ciidamadii militariga ee dalka Ethiopia oo markaasi in wax firxaday wax dagaalada ku dhintay iyo wax ciidamada ka baxayba noqday muddooyinkii ugu dambeysayna Abiy Ahmed ayaa isku dayay inuu markaasi buuxiyo askartii kala gadsanayd ee qaarna dhinteen qaarna ayba ka baxsadeen ciidamada militariga ee dalkaasi Ethiopia kadib markay u barbar dhigi waayeen maleeshiyaadka ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Ethiopia si guud ba saaxiibayaal warbixinteenan waxaan rabay inaan ku kor istaagno Ethiopia waa ka dhab inay markaasi Eritrea dagaal ku qaado ninkan hadlaya oo aad dhageysateen waa Birhanu Jula oo aad wada taqaanaan waxa uu si toos ah u leeyahay 200 milyan oo dad Ethiopian ah 25 sano soo socotana xilli intaas gaari kara 2 milyan oo qof uma xayirnaan karaan oo waxa uu leeyahay faa'iidada 200 milyan aysan markaasi badda ku helaynin ee 2 milyan ee qof ay badda ay ku helayaan maxay tahay taashaas ayuu isweydiinaya Birhanu Jula waxayna arintan u muuqataa in markaasi Abiy Ahmed uu si dhaba markan u wajahayo sidii uu dagaal ugu qaadi lahaa dalka Eritrea hadalkan ka soo yeeray Birhanu Julana waa fariin kale oo cad oo markaas si toos ah u muujinaysa sida ay Ethiopia markaas u rabto inay qabsato dekada Casab oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ku raad joogtay saaxiibayaal muddooyinkii ugu dambeysay waxaanu falanqeynaynay sida Ethiopia ay uga dhab tahay inay gaadho dekada Casab oo markaasi ciidamada kala gadsan iyo sidoo kale dawladda Abiy Ahmed iyo dhamaanba shacabka dalka Ethiopia lagu sii jeediyay markaasi sida ay ku gaari lahaayeen dekadaasi Abiy Ahmed ayaa hore waxa uu sheegay in 33 sano taariikh ka qalantay hogaamiyaashii soo maray dalka Ethiopia ay keeneen markaasi in dekada Casab iyo dekadii markaasi Ethiopia ay maamuleysay ay gacanta ka baxeen waxa uu sidoo kale sheegay inay hadda u diyaarsan yihiin inay mar kale soo ceshtaan dekadii ay hore u haysteen sidii Ethiopia ay uga go'day Eritrea ayuu sidoo kale Abiy Ahmed duray waxa uu tilmaamay in Eritrea aysan bamudnayn inay noqoto dal caalamku aqoonsan yahay siyaasad farqa maamula dalka Eritrea oo arrimaha si dhow la socday sidoo kalena dhankiisa eedeymaha xagga Ethiopia uga imaanaya ka jawaabayay ayaa muddooyinkii ugu dambeysay la sheegay inuu isdiyaarinayay waxaana la tilmaamay in siyaasad farqi uu la saaxiibay dalal dhowr oo uu isleeyahay haddii Ethiopia ay dagaal kugu soo qaado aad markaasi dhankooda u baxsatid waxaana kamid ah
dalka Suudaan oo daris la ah iyo sidoo kale dalka Masar oo muddooyinka ugu dambeysaba xiisad colaadeed ay kala dhaxaysay dalka Ethiopia arrintaas ayaana waxay u muuqataa Eritrea inaysan ilaa iyo hadda helin marin rasmi ah ama gaashaan rasmi ah oo haddii Ethiopia markaasi ay soo weerarto markaasi ka difaaci kara Ethiopia sidaad la wada socotaanba dowlado waaweyn ayay garabka ku haysaa waxa aysan dad badan ogeyn dowladda wadanka Turkigu inay Ethiopia saaxiib dhow la tahay waxaana sabab u ah dalka Turkiga warshado badan oo dalkaas ka soo jeeda ayaa gudaha dalka Ethiopia ku yaala kuwaas oo wax soo saar fara badan markaas gudaha dalka Ethiopia ka sameeya warshadahaasi Turkidu waa ilaashtaan sidoo kalena dagaaladii Ethiopia ka dhacay 2020 ilaa 2022 saameyn ballaaran ayay ku yeesheen diyaaradaha droniska ee Turkigu soo saarana waxay qayb ka ahaayeen duulaankii Abiy Ahmed uu kala hortagay TPLF waxaana la tilmaamaa in TPLF Turkida ay ku dhaleeceeyaan in diyaaradaha lagu duqeeyay shacabkooda oo dad gaaraya 800 kun oo qof ka badan oo dalka deegaanka Tigrayga lagu dilay diyaaradahaas loo fuliyay sidoo kale Ethiopia markii Turkiga laga yimaado waxay sidoo kale saaxiib dhow la tahay dalka Shiinaha oo muddooyinkii u dambeysayba markaasi si dhow dalka Ethiopia mashaariic waaweyn markaasi uga fulinayay waxa ugu yar hadda markaasi aan idin la wadaagi karo ayaa waxa ay tahay shirkadda soo saaraysa shidaalka deegaanka Soomaalida markaasi laga soo saarayo cidda haysaay waa dalka Shiinaha waa shirkado ka soo jeeda dalka Shiinaha sidoo kale mashaariicdii ay kamid ahaayeen biyo-xireenka webiga Niil ee muddadii u dambeysay ama bishii September ay soo dhaafnay ay dowladda Ethiopia xaraka jar ku sameysay cidda dhaqaalaha ugu badan gelisay waxa ay ahayd dowladda Shiinaha Shiinuhu waa saaxiib dhow waxa uu dhisay jidka isku xira dalka Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia ee uu tareen ku maro sidoo kale kan gaadiidka ee labada wadan isku xira isaga ayaa dhisay sidoo kale mashaariic kale oo waaweyn iyo warshado ayuu dalka Shiinuhu ku leeyahay gudaha dalka Ethiopia waana mid kale oo muujinaysa in Abiy Ahmed markii Turkiga laga yimaado uu gaashaan kale oo dhaqaalo iyo sidoo kale hubba siin kara markaasi uu gacanta ku hayo arinta saddexaad markaasi hadii Eritrea la weeraro oo Ethiopia ay weerar ku qaado markaasi muujin karta in Abiy Ahmed iyo dawladdiisu ay guuleysan karaan waxay tahay dhawaan dawladda Ruushka iyo Ethiopia waxay galeen heshiisyo iskaashi oo dhanka militariga ah iyo sidoo kale in Ethiopia laga caawinayo inay samaysato warshada tamarta nuclearka sida ay warsaxaafadeed ay labada dawladood soo saareen ay ku sheegeen Ruushka ayaa la ogyahay inuu Ethiopia marar kala gedsan oo weerar lagu soo qaaday uu markaas si weyn u caawiyay waxaana ugu weyn 1977 markii dagaalka Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya uu qarxay oo ciidamadii Soomaaliya ay jab xoogan gaarsiiyeen kuwii Ethiopia deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale deegaano ay kamid yihiin Hareerida iyo kan Oromadana gacanta looga dhigay xilligaas midowgii Soviyeeti oo dawladda Ruushku ay hogaaminaysay ayaa u soo gurmaday dawladda Ethiopia waxayna jab xoogan u gaarsiiyeen sidoo kalena ay celiyeen ciidamadii Soomaalida ee markaasi deegaanka Soomaalida iyo dhul kale oo Ethiopia ka tirsan markaasi gacanta ku dhigay saddex dawladood oo aad u awood badan ayaa la tilmaamay in Abiy Ahmed markaasi uu sugayo inay qayb ka noqon doonaan taageerada uu markaasi doonayo inuu kula dagaalamo dalka Eritrea arintaasi waxay noqonaysaa hadii ay dagaal dhacdo in saddexdaas dalba ay dhinaca Ethiopia ka soo saftaan sidoo kale Mareykanku waa mid ka mid ah dalalka qaaradan Afrika ku yaala ee uu dhaqaalaha iyo sidoo kale wax u soo dhoofiyo inkasta oo dhawaan madaxweynihii hore Mareykanka Joe Biden uu cunaqabateyn dhaqaale u saaray dalka Ethiopia waxyaabihii Ethiopia uu ibgeyn jireen canshuur dheeraad uu saaray ninka hadda maamula dalkaasi Donald Trump haddana waxa muuqata in marka la isbarbar dhigo saameynta uu Ethiopia ku leeyahay Mareykanku iyo midda uu ku leeyahay Eritrea midda uu ku leeyahay dalka Ethiopia ayaa aad u saameyn ballaaran marka saaxiibayaal si guudba warbixintan waxa ugu saabsanayd
ciidamada dalka Ethiopia hogaankoodu maanta si isku mid ah ayay markaas ugu dhawaaqeen Birhanu Julla oo ninka ugu weyna markaas isagu si cad ayuu u sheegay in Ethiopia saddexda qodob ee ay doonayso inay ka dhabayso markaas ay kamid tahay sidii ay ku heli lahayd mid kamid ah dekadaha ku yaala Geeska Afrika isagoo si gaar ah u carabaabay dekada Casab ee Eritrea markaas ay maamusho waxaan sidoo kale muuqaalkeedin kula wadaagaynay hadii dagaal dhaco cidda loo saadaalinay inay guuleysan karto dhinaca kale Ethiopia laftirkeeda xaaladeedu ma sahlana gudaha dalka waxa ka socda qalalaase aad u ballaaran waxaana dhacaya marba marka sii dambaysa in jabhadaha dalkaas ka dhaqdhaqaaqa ay saameyn xoogan oo aad u ballaaran ay ku yeelanayaan siyaasadda iyo sidoo kale amniga guud ee dalkaas Ethiopia Abiy Ahmed hadii uu dagaal qaado waxa la leeyahay laba mid bay noqonaysaa in jabhadaha iyo sidoo kale shacabka dalka Ethiopia ay u midoobaan marka hore in Eritrea dalka ka xoreystaan oo ay dekadaas qabsadaan iyo in Eritrea ay faa'iido hesho oo markaas jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Ethiopia sida jabhada Faano TPLF tan oramada iyo tukalo iyagu ay ka asaaseen deegaanka Canfarta dhamaantoodba hadii ay dhinaca Ethiopia ku sii jeediyaan waxa la leeyahay waxay noqon kartaa in awoodii Abiy Ahmed dhinac kale loo jeediyo si kale markaan idin ku sheego falanqeeyaasha arrimaha ammaanka waxay tilmaamayaan hadii ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada wadanka Eritrea ay iska hor yimaadaan oo dhanka infantryda waxa loo yaqaano ama ciidamada lugta waxa loo yaqaano hadii iska hor yimaadaan waxay cid walba qiraysaa in markaas ciidamada Eritrea ay dagaal ku guuleysanayaan balse waxa la tilmaamay dhanka cirka in ciidamada dawladda Ethiopia ay si aad uga xoog badan yihiin kuwa Eritrea dawladda Ethiopia ciidamadooda cirku waxay ku hubeysan yihiin miigag aad u tayeysan oo dalalka China iyo sidoo kale dalka Ruushka ay soo saaraan sidoo kale Ethiopia waxay isticmaalaysaa diyaaradaha droneska loo yaqaan aan duuliyaha lahayn ee markaas dalalka Shiinaha iyo sidoo kale Turkiga ay soo saaraan waxaana la leeyahay arintaasi Ethiopia waxay ka caawinaysaa in ciidamada militariga ee infantryga ee lugta ee markaas Eritrea meesha ay joogaan ba ay ku duqeeyaan waxayna arintaasi guul gaarsiin kartaa ayaa la leeyahay inaysan ciidamada lugta ee Ethiopia aysan dagaal gelin oo diyaaraduhu ay noqdaan kuwa sida tooska dagaalka u wajaha ee ciidamadana inta ugu badan jabiya hadii laakiin diyaaradahaas aan la isticmaalin ciidamada lugta ee Eritrea ayaa xilligan la joogo ka awood badan kuwa dalka Ethiopia si marka inta qiimeynta lagu sameeyay labada dal maadaama sanadihii ugu dambeysay Ethiopia ciidamadoodii rasmiga ahaa ee hore ee awoodda badnaa ee laga cabsan jiray dagaalada sokeeye ee dalkaas ka dhacay ay ku dhamaadeen kuna burbureen hadda askarta ugu badan waa dhowrkii sano ugu dambeysay ayaa la qoray tababarkooduna waa 6 bilood qolada ugu badan baa hal sano la tababaraa waxaana inta ugu badan ee dhalinyarada ciidamada kala gadsan ee Ethiopia qoranaysa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa aan markaas u jajabnayn sidoo kalena aan doonayn inay durba dhintaan oo ay dalka aan u dhiman karin waxa kaliya ku qasbay in sida tarabada ah ama sida haleelka ah ee markaas ciidamada ay u qoranayaan ay tahay shaqo la'aanta gudaha dalka Ethiopia ka jirta oo waxay isla leeyihiin meelaha seexataan waxaad cuntaan iyo dhowr kun oo mushahar markaas si aad u heshaan taasi Eritrea waxay ka caawinaysaa ayaa la leeyahay inay dagaalka lugta iyadoo ay ku awood badan tahay laakiin dhinaca cirka Ethiopia aad iyo aad ayay muddooyinkii u dambeysay isu diyaarisay cidda markaas la socota ee ciidamada cirka ee dalka Ethiopia waa kuwa hadda awood badan marka la fiiriyo kuwa ay doonayaan in la dagaalamaan ee markaas dalka Eritrea saaxiibayaal xiisada marba marka si dambeysay waa ay ka sii daraysaa waxaadna moodaa in xaaladdu ay si cuslaan karto oo ay intaan ka sii badnaan karto Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisuna waxay u muuqdaan kuwa diyaar ah oo markaas Eritrea dhanacooda ku sii jeeda intaas ayaan saaxiibayaal barnaamijkan kooban ku soo gabagabeynaya waad ku mahadsantihiin daawashadiina anigoo Cabdulqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinayay saaxiibayaal haddii aadan hore noo la soconin ku soo biira baraheena kala gadsan si gaar ah YouTube-keena subscribe ku samee sidoo kalena muuqaalkan la gare lana si wadaag saaxiibada oo si share gare si u meel dheer u gaaro idinkuna aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin la socodkiina annagana dhiirigelin ayaa arrintaasi noo noqonaysaa waxayna keenaysaa inaan warbixino dheeraada oo run ah markaasi idinla wadaagno intaas ayaan saaxiibayaal idinku dhaafayaaye intaan kulmi doona muuqaalkeena xiga sidaasi nabadgelyo